السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن خيارة دافها عالم كسيدة توسكا إنه قد على عنيساي كسو دوادة دوكسي ميديا إيانيقو عبد الساق سولي علي هسا مانتا برنامجك وحا إيقو مرتئة فائزة أميرو فائزة دودا قرانيسان فائزة مركو قوه ريسا سديران وقسو دوو channelka دوكسي ميديا ما شاء الله عبد الرزاق ودوا هرتا سيدة شرفتي قيمها له أدي وعسونتي برنامجك sidoo kalena waxaan leeyahay dhammaan asxaabta kugu xiran dhamaantood waa salaamaya waana ku dhawahay Cabdirasaaq waa tahay Faiza aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sida hufanaad barnaamijka qayb uga tahay waxaan si kaliya laab u salaamayaa akhyaarta ku xiran channelka Duxi Media haddii ay tahay markii kugu horeysay oo channelkeena aad soo baaqato fadlan si naxariis leh waxaan kaaga codsanaynaa inaad subscribe iyo like taba aad noogu roonaato oo ka mid noqoto asxaabta iyo waliba family-ga channelka haddii aad hore noola joogtana kaliilaab aad u mahadsan tahay inta waxa dheer haddii aad fikrado iyo talooyin noo haysaan waxaan idinka codsanayaa inaad noogu soo gudbisaan qaybta comments-ka wax badan ayaan jecelnahay inaan idinla wadaagno idinkalana helno waa tahay inta markaa uga gudbo barnaamijkani caawa wuxuu ku saabsan yahay siyaabaha dadka Soomaaliyeed ay u qiimeeyaan ama u qadariyaan dadka celebrity-ga uga Soomaalida dadka celebrity-ga oo Soomaalida ama caanka ka Soomaalida hadii ahayd dhinaca culimada diinka hadii ahayd abwaanada iyo fanka hadii ahayd ganacsatada hadii ahayd siyaasiyiinta hadii ahayd sportiga hadii ahayd maxaan ku raadayay adigu hadii ma soo koobi karo dadka celebrity-ga oo Soomaaliyeed dadka caanka ka bulshada Soomaaliyeed qaabka ay Soomaalida u qiimeyso iyo qaabka dadkooda celebrity-ga adduunka iyo dawlad walba iyo shacbi walba ay u qiimeeyaan sidoo kale waxaan rabaa caawa inaan idinkugu mishigareeyo ama aan idinku magacaabo halkan inaan barnaamijka si wada jira aan aniga Faizo u wadno sidoo kalena aan fikradaha aan isdaafsan doono aysan ku ekaan doonin su'aal iyo jawaab aan isla falanqeyn doono si furan waana ku mahadsantihiin kusoo dhawow sideen u qiimeynaa dadkeena haldoorka ee magaca kula bulshada Soomaaliyeed maxaa looga baahnay dadka celebrity-ga inay la yimaadeen dadkeenu samaxa horta Cabdirasaaq waa ku mahadsan tahay waxaan rabaa horta hadii aan guda galo barnaamijka dadka Soomaalida dad yowga Soomaalida magaca ku leh hadii halaayeen madaxda aday aan isku soo koobno Soomaalida dadkeeda waxay ay ula dhaqmaan bas ay sida ay ula dhaqmaan wadamada kale dadkooda celebrity-ga hadii halaayeen madaxda hadii halaayeen fanaaniinta hadii halaayeen adiga dad la yaqaano caan hadii halaayeen dadka bulshada magaca ku leh gooniya dadka bulshada magaca ku leh oo wadan kaste wadamadeena markii laga reebo Soomaaliya tan Soomaaliya oo maanina laakiin Afrika America adduunweynaha sida loo dhaqmo dadkaas oo kale magac leh waa si ma arkano aniga marka ka soo qaadbo wadanka Ethiopia mise waxa ka soo qaada Kenya mise waxa ka Afrika leh Afrika marka qofka shakhsiga magac leh si waxa loo ixtiraamaa gooni fanaankooda mise abwaankooda mise madaxweynahooda kore u qaadaan oo dadka kale uu ugu duwan yahay waa sax qofkani wuxuu meel ku gaaraa dadkiisa sida ay u qiimeeyaan sida u qiimeeyaan sida maanta fanaan oo kale xafladu leeyahay mise show leeyahay showgaas meel kale istaagay ma laha aad weyn waa aragtay si professional waa loo duubaya showgana qabiil ma soo galaayo waxay u soo galayaan si qaran loogu soo buuxinaa doofanaan yahay hadduu madaxweyne yahay meeshu mar waa loo istaagay saluuta leeyahay laakiin Soomaalida dadkooda caanka ma ixtiraamaan ixtiraam ma hayaan ma respect gareeyaan bas calashaan marmar markay arkaan inay si gooni u salaama maahane maanta hadii adiga dadkaaga ay kor ku qaadin wiliga kor uma qaadmaysid waa sax dadkaaga adiga aad ka imaatay meesha ka imaatay waa inay kor ku qaadaan lagu boonbooniyo markaas adigana niyada ku dhismaysaa oo aad hore u soconaysaa laakiin marka adiga hadda fanaaniinta Soomaaliyeed kala fanaaniinta aad u aqaana fanaaniinta Soomaaliyeed kor markay show qabaan dadku waxay ugu galaan qabiila loogu galaa qof kasta showga qabo qabiilkiisa dadka ee yasaan oo kale 4.5 online gap ay ku magacaabaan oo kale
saas loogama galaayo waa gartay looma laakiin ninka laandheeraha laandheera wow xagga hore waa idhe laandheera batay saacamal adiga qabiilka waa weynka waa lagu soo buux dhaafina laakiin looma baana saas waxaa loo baahan yahay qofka hadduu magac uu leeyahay wow qofka naftirkiisa magacan dhedheel kuma helin adoo gurigaas magaca guud marka waa in lagu qiimeeyaa leedahay adoo gurigaas iska jiiftay celebrity ma noqon kartid waa sax celebrityga naftirkeeda waa inaa usoo dhidi daawo orodaawo dhibaatooyin badan ay kugu dhacda adigoo saas usoo rafaado magacaaga kor aad cabdirasaaqo haddii haddana dadkaaga ay ku qiimee waayaan dhibaatay leedahay hadda adiga nii jabsoo kugu imaanaya aada weyn dhibaatay leedahay marka aniga kolleyba saas farqiga marka dadka adduunweynahana kalena dadkooda kor u qaadaan oo niyada u dhisaan soomaalidana dadkooda way leedaan waa farqiga waa tahay si qurux badan ayaad qaybtii u horeysa noogu falanqaysay tusaale waxaa jirto annaga waxaanu leenahay culimo soomaaliyeed oo runtii aad yani u magac dheer oo maxaan ku idhahdaye qiimo badan adduunka ku laho xitaa dowladaha caalamku ay yaqaanaan waxaanu leenahay sports caan ahoo hadda uu ka mid yahay cabdi bilaa cabdi oo kale iyo ragga lamidka ah waxaanu leenahay ama lahaan jirnay fanaaniin ilaa heer qaran ahoo gaaray in wadanka Soomaaliya inta ka tagaan iyagoo ka socda oo delegation ahoo wafdi ah inay wadan kala tagaan hadda waxaa taagan kuwa laftirkooda aan runtii la soo koobi karin magaca ay Soomaali u hayaan magac lahaan kuna gaaray yani wadiiqo qurux badan oo wanaagsan oo aan dhihi karno waa yani wax lagu jeclaado way yihiin shakhsiga Kenyaanka tusaalaha wadamada nagu xeeran baan tusaalaha ugu horeeya kusoo qaadaya Asia iyo Europe iyo America iyo maba kula aadayo wadamada nagu xeeran oo sida Kenya iyo Ethiopia iyo waxa la midka Uganda iyo markaad fiiriso ninkooda caanka ah ama gabadhooda caanka ah ama abwaan ha noqdo ama qof writer ha noqdo qof sporter ha noqdo sheekh ha noqdo fanaan ha noqdo wuxuu doon ha noqdo jidka markuu marayo sawirra la galaa waa la istaajiyaa sawirra la galaa waxba saani waxba laga qaataa qofkii wuxuu dareemayaa population badan inay jeceliin inuu dadka population u yahay dadkiina qofkoodii way fahansan yihiin oo karaamo iyo sharaf bay u hayaan waxay jecel yihiin inay dhahaan hebelaan la kulmay heblaayaan la kulmay hebelaan la kulmay oo dadkooda ay amaanaan hadda tusaale ahaan waxa cajiib ila ah gabar u dhalatay wadanka Suudaan oo fanaanad ah oo Soomaalidu runtii aad ay u jecel yihiin oo muxuu ahaayay xitaa inay xafladahooda ku soo casuumaan ay gaarteen ayaa waxaan arkay habeen taariikhdeedan aqriyay taariikhdeeda xilligay fanka soo gashay wixii waan fiiriyay waxaan kaloo haddana fiiriyay taariikhda ragga qaar ee Soomaaliyeed ama dumarka qaar Soomaaliyeed fanka iyo heerkay u soo mareen markaan fiiriyay farqi baa u dhaxeeyaba waxaad moodaa kuweena inay sii sareeyaanba fanka iyo sida ay ku soo galeen iyo sida ay ku soo mareen iyo heerarkiis kadib yani sida ay yihiin even cod ahaan iyo wadan ahaan iyo yani meelo badan markaan ka fiiriyay waxa marka qaadan waayay inay fanaanadaasi ay ka qiimo badnaato ay dadku baabuuniyaan oo Soomaalidii oo dhan ay u kacaan fiiriya ay baabuuniyaan fanaaniin ka qaalisan oo Soomaaliyeed oo maanta noogu jooga fanka noogu soo gudbiya yani magac Soomaaliyeed noogu soo gudbiya afkii Soomaaliga ahaa oo Soomaaliga dhan u dhaxeeyayna aysan dadkii aysan waxba ka soo qaadin maxay iga dhibaysaa haddaan arko Hibo Maxamed Gudoon Hibo Nuur oo kale haddaan la kulmay inaan idhaahdo one of my legend waa legendadeeda kamid yihiin celebrity-geyga ay tahay oo caawa aan sawir la galoon ku faanoon proud of ku noqdo maxay iga dhibaysaa caawa sheekhiga Cabdirashiid Cali Suufi ama Sheekh Umul haddaan arko haddaan sawir la soo galo ama aan la kulmo ama aan yani markaan la kulmo aan يعني ما شاء الله إلهي كسكو ومهد عليو شقدي نو هيان maxay iga dhibaysaa waxna kaama dhibaysaa kuwa kale oo maanta laf dhabartu ah umada Soomaaliyeed taariikhda kule maxay iga dhibaysaa hadaan u muujiyo kalkacal iyo inay dadkaasi shacbiyad leeyihiin maxay iga dhibay waxna kaama dhibaysaa waa maxay marka xaasidnimadan gaarka kuwa Soomaalida marka Soomaalida ku weydiinaya Soomaalida ku sheegay Soomaalida waa waxaan ma aqaan inay iska dhigaan iyo inay xaasidnimo ka tahay mar walba Soomaalida anigu waxaan u arkaabo in ay shishay u kalkaal yihiin alashaan fanaanad wadan kala joogto inaad soo wadatid adoo fanaaniintaada la jamadaada aad kor u qaadeen oo fanaan
gurigaaga adiga fanaanka joog gurigaaga aaba kor u qaadi weysay mar walba hataa fanaanka marka jid ku aragtay mise markuu xaflad qabo mise markuu show qabo aaba kor u qaadan laakiin fanaanka inaa soo wadato xafladaha ku casuubatid kale anigu waxaan u arkaa horta Soomaalida sideedaba ayaga dhaxdooda markaas oo kale loo baahan yahay fanaankaaga mise qofkaaga adiga magac abtaada kuleh oo magaca Soomaaliya haduu fanaan yahay haduu footballer yahay haduu qoraa yahay haduu qof adeecaan oo bulshada ku dhex jiro oo yahay markaas oo kale ayaa lagaaga baahan yahay mar walba aad jid ku aragtina dhiirigelisid qofkaaga laakiin qofka marka aragtid oo qof kale adiga wadan kale jooga oo soo kaxaysid qofkaaga bahdiloosa oo waxaad ka dhigaysaa ina adiga fanaan on quality leh low profile ka soo qaad fanaaniintaada tayo umay laakiin adiga fanaankaaga hadii adiga aad kor u qaadatido fanaankaaga aad buuboonisid qorayaasha ka waran fanaanka hadda ragga abwaankaaga aad buuboonisid madaxdaada aad buuboonisid dadka banooni ku dheel aad buuboonisid dadka hataa niyada u dhismayso qofka niyada u dhismayso hawshii hore u sii wadaa laakiin aniga hadii aan arko maanta aniga oo dan iyo muraad la iga leeyno markii la arka la telescope sawir la iga tago oo fanaani kor la ii qaadeen dadkayga oo saas xoogaan iyo jawaab ku imaanay aniga waxaan u maleeynaa nin horta midan ku leeyahay waaga 7 xorxorki waaga fanaaniinta hore aad loo qiimeey jiray sidaan la ii sheegay fanaaniinta oo dhan waaga maxamed siyaad bare guriga la sii jiray fanaaniinta meelo waxay lahaayeen museum ajiib tiyaatar lahaayeen tababara la sii jiray footballers dadka footballka ilaayagana sidoo kale dadka adiga qofbo markuu caan qolo walba meeshii leedahay markii xaq u leeyahay la dejinay xaqooda la sii jiray oo hadda markii wadankii burbur oo ku imaaday waxyaabahaas oo dhan dadkan hadda jirane waxaas iyo qofkan tayada oo leeyahay iyo qiimaha oo leeyahay ma yaqaan dadkan that's why ay fanaaniintooda iyo madaxdooda iyo dadkooda magaca leh qoraagooda abwaankooda aynan dadkan tixgelin because ayaga maba soo arkin meel loo ixtiraamayo hadii arki lahaayeen waa gartay daawada adigana daawanaya ee channelka ku xiran meeshan qurux badnayn maadaama aad community aad u qurux badan sharaf badan Soomaaliyeed magac adduunka ku leh qaaradda Afrika ku jira bulsho badan oo maxaan ku raada quality le ka dhashay dad badan oo magac kulan ay kamid yihiin dadkaaga magac leh inay agtaada karaabi iyo wanaag ka lahaadaan soo ma qurux badno adigoo uu fikiraya qaab qarannimo qabiilka xaqiiqa dhig qaab qarannimo adigoo uu fikiraya meeshan qurux badnayn meeshan wanaagsanin anagoo inaanu ku tashano kuweena qiimeeyno kuweena sameeysan ku wanaagsanin ama aysan ku qurux badnayn inay dareensiyaan shacbigoodu inay yihiin shacbiga ay wax ku yihiin faizo diban kugu soo laabanaya waxaanu leenahay qorayaal wax qoran qaar baa waxay bilaabeen afka maanta aniga adigu aan ku wada hadlayna Soomaaliga in ayagu qoran buugaag badan oo maanta yani yaala maxaan ku raada gudaha Soomaaliya ama library-yadeena ha noqoto ama xarumaheena markaas loogu talagalay taariikhaha Soomaaliya museum waxay doonto ha noqotay ayay yaalaan maadaama hal dooro taariikhda Soomaaliya qoray magac kule bulshada Soomaaliyeed una gudbiyay aqoontii iyo taariikhii iskuna hoola wixii ay yaqaaneen inay Soomaali inta kayd uga dhigaan magacooda kaliya ay ku hoos qoraan meeshan xaq u lahayn in lagu qiimeeyo maalin loogu yeelo lagu sharfo lagu soo magac qaado yani meeshii ay naga yani ayagu dadaalkii ay naga sameysteen iyo wanaagii ay naga kasbadeen inaan u muujino meeshan xaq u lahayn in bilada lagu siiyo ay istaahilaan because qof dhan luuqada aad ku hadlaysa qoray oo buwaagta ku qoray kulay ma noolyihiin inay noolyihiin tahay cajiib waay kaasoo dhintay laakiin inaad taalooyin loo dhiso ayagoo kale meelo especially dadkii waxyaabo fiican sameeyo kale dadaa jira hataa wadankii soo dhiday oo soo dagaalamay dhibaatooyin marka dadkaas oo kale meelo special in la ma arkin oo lagu xuso sida adduunka kale qofkan afkeena Soomaaliga qofkan saano sameeyay kan waa soo halgamay kan waa soo halgamay kan meeshaas ku intay inkasto xaawataaki iyo sayidka iyo dhaxtuur iyo oo aan arkay laakiin waxa loo baahan mar walba qofkii wax yar u sameeyo wadankii iyo
kolleyba in loo muujiyo Ah. waxtarkiisa marka adiga haddii aad wax samayso oo lagu muujin waxtarkaaga oo dadkaagana ay ku ogeyn Ah. dee waxaa noqonaysaa hal bacad lagu lisay aada u weyn ya aada u weyn aniga marka waa tahay marka ugu dambeys maxaad adoo hal daqiiqo igu soo koobaya maxaad ugu baaqaysaa bulshada sharafta leh ee sida tooska ah kuu daawanaysa Ah. dadkooda haldoorka ah maxaad kula talinaysaa inay kula dhaqmaan wallaahi cabdirasaaqo horta waxaan dhihi lahaa dhammaan inta daawad videogan arki doonto base fiirso doonto waxaan dhihi lahaa horta dadkiina idinkee dad idinku yihiin adiga haddaadan dadkaaga kor u qaadin oo aadan weyneynin dadkiina waxaa ku imaanaya niyajab Aad u weyn. adigana ceebay kuto sida adduun weynaha dadkooda caanka ay kor ugu qaadaan maxaa kuu diida adiga qofka adiga maanta dadkaaga in aad kor u qaadid oo buunbuunisid oo markaa meel ku aragtid sharaftid oo marka meel la iskugu imaanaya aad u tagtid aaniyada u dhistid saasaa loo baahan yahay marka waxaan idinkugu talaa dhammaantiin aan tala ahaan idin sii lahaa ha in dadkiina aada ixtiraamtiin oo mar walba qofka magac haddooba leeyahay inaad kor u qaadid waxtarkiisana aada ku qiimeysid maasha allah aad iyo aad u mahadsan tahay daawadayaal si toosa waxaad noogala socoteen Duxi Media waxaana idin si wada jir ah oo isku duubnaan u daadihinayay walaashay Faiza Amira oo aad garanaysaan inay tahay camera woman actorad producer sidoo kale youtuber bulshada Soomaaliyeed gudaheeda caanka ah laftirkeedu Faiza aad u mahadsan tahay waxaa si wada jir u daadihinay sida idin sheegaba anigoo Cabdirasaaq Suley iyo Faiza Amira intaan barnaamijkan mid xiga aan dib ugu kulmayno si wada jira waxaan idin leenahay sida iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh